السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وسراجي تقدمني سنة وسراجي في شاجنا فضلا بقى كوسة سبسكرايب إنه صار هذا ما صحي ما أنت حيدي وضع الليلة هذا قصة أصلا وحي أقول عادي يعني جبر وعموله يومين رجح وعافمات قوي وحميسة ودم السنين اللي حس اللي حنا قوي قصدنا waxay ku bilaabatay gabadha waxay ahayd gabar ma sha Allah qurxoon doorsoon xaafadeeda joogto laakiin amoola ah waxa la nool wiil walaalkeeda ah ee la nooshahay xaafada isla degan yihiin gabadha xiliyada kale waxay barataa maalinta hadda intaan ka ahayn maalinta hadda walaalkeeda lama joogo inta kale laakiin walaalkeeda waxbarashada ka caawiyo xagga bixitaanka iyo xagga wax ku soo baranay maalintii hadda ahayd ninba gabadhii weydaystay yani soo ogaaday qaabka iyada wax yani xilliga ay yani lala joogin waxa uu soo ogaaday xilliga iyada kaligeed ay tahay xaafadda ayuu soo ogaaday xaafaddii ayuu yimid gabadhii albaabka u soo galay guriguu soo galay waxay ahayd gabadhii kaligeed soo waday gabadhii waa soo kaxaystay gabadhii ma ogo waxba uma jeediyay wax ma arkayso waa amoole sidaas darteed ayuu ugu faa'iidaystay gabadhii waa soo waday gaariga ku soo kaxaystay wuxuu keensaday xaafadiisa ama meel asaga u qaas oo keensaday yacni aan lagu arkaynin markuu halkaas oo keensaday ayuu yidhi aniga waxaan rabaa in aniga waxaan doono maanta aan kaa samaysto waxaan doono aan kaa samaysto adigoona iswaalin aana isdhibin inaad adiga isdiyaarisaan kaa rabaa waxaan rabaa qof xumaantaasi yani kaa damacsan maanta inuu kugu sameeyo ilaahay qofkuu hanuuniyey ayaa hanuunsanaadee gabadhii waxay tiri saas maarata inaad igu samaystaa walaal 2 rakac sunnaan dukana iisu waa dhacday 2 rakac sunnaan ayaan dukanaha iisu kadib wuxuu yiri orduku labada shay isbu dukadii wax ku galayaan gabadhii 2 rakac sunnada ay dukatay sujuudii ayay ku dheeraatay ilaahay ayayna bariday waxay akhrisay ducooyinka oo cadowga haddaad akhrisay ilaahay kaaga qabanaya oona ilaahay ciidamadiisa kuu soo diraya ilaahay ciidamadiisa mar walba waa diyaar haddaad adiga baridid oo qof yani oo kugu yahay nabar ama yani qof doonayo inuu ku dhibaateeyo haddaad ilaahay baridid ducooyinkaasi waa la helaa aad akhristid walaal waad ka nabadgelaysaa inaad ilaahay shaydaamaka ama dadka xaasidiinta ay wax kugu sameeyaan bal qisadan ku dhamaystire waxay ku dhamaatay qisadii gabadhii inay salaadii markay gashay gabadhii sujuuday sujuud ay ku dheeraatay rabbigay iida abuuray ninka xumaanta ku sameey rabana abuuray una jeeda labadooda is ilaahay ka qabtay ninka cadowga ay maanta ducadii markay dhamaystay salaadii ay ka salaaman noqsatay iyadoo waxay isdaysaa yani ilaahay baa askar oo dad caadi ah askarta يعني أو هذا أدوك كنول هوتي وكوسو دير دونا يعني ضدا كوي ما دونا ونكا كقوى دونا إزديسي لكن ما يدعي ما حد عاي إلهي وحو سميه نكي حمان ترى إنه سميه أي إلهي أرجع كقاضي إلهي أي أرجع كقاضي نكي أرجع لك قاضي أرجع وحال وبدلي يودي عم ولده هاد مرقصة كور marka lagu bedelay waxay aragtay yani waxay filinayeen waxa aragtay ninkii oo cabaadaya oo dhahaya walaalay maxaa jira waxaad ugu sameysay oo dhahaya iidan arag ilaahay siiyay bal qasada u fiirso inay ay dadka taabanayso adiga xumaanta sameeynayo qofka xumaanta ku sameynaysid labadiina Allaheedii abuurtay inuu joogo oo nool yahay oo samada idinka daawanaya hoostiina idinka daawanaya meel kasta oo idinka daawanaya
waxaan filayaa qisadan dad ku cajibisay inay subscribe-ka inoo saari doonto, video noo share gareey doontid, comment aad soo qori doontid. saa aniga oo caafimaad qaba waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtid. Videoyashaas daba soo socdana adigoo caafimaad qaba aad daawo doontid. waxaan idinkaga tegaynaa haddaad nagu cusub tahay horta oo ku soo dhaweynaya qof la soo dhaweysta adaa u mudan. haddaase hore inoola joogi jirtay walaalkaa maqan joogin u share gareey, subscribe badiyo, share badiyo. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.